dadka ku dhaqan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa saaka mar qora waa berigii waxay ku soo tooseen daryaanka rasaasta culus kadib weerar ay ciidamada nabad ilaalinta AMISOM gaar ahaan kuwa Djibouti ay ku soo qaadeen saldhigga booliska degmadaasi. Ujeedka ka dambeeyay weerarkaasi waxa uu ahaa in ciidamada Djibouti ay isku dayaan inay xabsiga dhigaan taliyaha saldhigga booliska degmadaasi Muuse Salaad Wehliye iyo gudoomiye ku-xigeenka ammaanka Jalalaqsi Miro Xuseen Siyaad oo ka hor istaagay in hawada ay ka saaraan ama ay dimiyaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud, balse waxay iska caabin kala kulmeen mas'uuliyiintii la xiriir rabay oo dagaal foolka fool ah ayaa dhaxmaray labada dhinac. Dhanka kale waxaa jiray ciidamo maleeshiyada oo kaga yimid hareeraha magaalada Jalalaqsi in ay caawiyaan ama ay ka barbar dagaalamaan maamulka iyo hay'adaha ammaanka Jalalaqsi oo dagaal saacado qaatay uu dhaxmaray iyaga iyo AMISOM sida uu sheegayo goobjooge ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. maxaa ka dhaxeeyay taliyaha saldhigga Jalalaqsi iyo ciidamada Djibouti ka tirsan AMISOM? waxaa ka dhaxeeyay dadka shacabka ay bilaabeen inay duur kuga soo wadaan ay rabaan inay ku xirtaan asigana waa taliyahii saldhigga waxa uu wax lagu xiri karo ma lahan ninkii qalabkala iyo ninkii shabaab saldhigga lagu xiraya marka ugu horreysay marka ayagana waxay dhaheen annagaa maamulayno annagaa ku xirayno marka nin shabaab iyo nin shacabana kalama yaqaanin waa dad xaalada khatar ah oo guryahoodii xoolahoodii ku jooga inay baxaanay kusoo aruurinayaan kuteenarada. warar kale waxay sheegayaan in ay dagaalku ka bilowday isku day ciidamada Djibouti isku dayeen inay dimiyaan xarunta shirkadda Hormuud ama isgaarsiinta hawada ka saaraan. maxaa ka jiro? waa ka jiraan saaki markuu aroortii keenada laga qaaday magaaladana maysan miina ka baari jirin marka maadaama miina magaalada ka baaraynaha waxaa lagu yiri keenada la qaadin maayo. marka waxay dhahaan miinana magaarayna keenadana waa la jaraa. dagaalkuna sidaasoo ku bilaabay. yaa soo qaaday marka dagaalka? ayagaa saldhigga weerar ku soo qaaday ayadoo la hurdaayo maahan hadda wax ayaga weerar ku qaado malahan ayagaa saaka weerar ku soo qaaday. ma noo sheegi kartaa wax khasaarahoo dagaalka ka dhashay haddii ahaan lahayd dhimasho ama dhaawac ama burbur hantiyadeed? burbur hantiyadeed hirihii oo taliyaha saldhigga oo deganaayay waa burburiyey. shacab wax hadda gaarad waxba uma naxariisin shacabka ayaga wax qof oo magaalada koran aniga hadda hoosaan joogaayo wax koran wax gaaran hadda kama warhayo khasaare ma koodi karaan. maya ayaga hub culusay wateen waxaan ku dhahay inta shiikay ku garaaceen gurigu waa burbursan yahay laakiin dadkan waa dad iska hurdaayay baa ahayn saakareed halka waa markay dadkii isku soo qaadaceen oo shacabkii soo kacana dib u noqday. taliyaha booliska iyo gudoomiyaha amniga labadaas ay u soo baxeen saaka wayna u siisay. dagaalka goormuu joogsaday marka? 15 daqiiqo ka hor istaagay hadda saaca ay lahayd ciidamada Djibouti xerada waa galeen Hormuud marka kalaana wixii ciidan baladka jooga afarto shucuurtooda muujiya kor u qaaday ciidanka shacabaayo banaanbaxyo waa ka socda magaalada cagaa la gubaa shacabku waa soo baxay dadkii rayidkii wax xero ma laha waa soo baxay nin walba meeshiisa ka soo baxay laakiin ayagaa dib u noqday hadda waa kulli waa la wada colaadsan waa la isla wada jiraa. ciidamada islayda waxay ka imaadeen tuulooyin magaalada heeraaradeeda ee sida qoryaaloo kalay ceeldiidoo kalay bisaaleyoo kalay dhulkaasay ka imaadeen. waa gartay hadda xagee joogaan markaa mise waa iska laabteen markuu dagaalku dhamaaday? samay saldhigga ku sugan yihiin wax ka maqan mal ayaguna dib u noqday. magaalada hadda waa xasilan tahay laakiin ayaga dib u gurtay laakiin dadkan kalena iyo shacabkii wixii xamaasada aad ay u kacsan.